waxaa inta badan dhakhaatiirta caafimaadku ay ka dayriyaan cudurrada ka dhasha biyaha roobka ee laga soo qaado meelaha aan ku habboonayn kuwaasi oo ay isticmaalaan dadku. Dabayaaqadii toddobaadkiina dhaafay gobolka Nugaal waxaa si rasmi uga bilowday roobka guga, waxaana meelaha uu roobka biyo dhigay biyaha dib uga soo qaada booyadaha ka ganacsada biyaha roobka. Dowladda hoose ee degmada Garowe oo kaashanaysa kooxo caafimaad oo ka tirsan ururka Bisha Cas ayaa bilaabay olole laga hortegayo cudurrada faafa ee ka dhasha cabista biyaha wasakhaysan. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ku sugnaa mid ka mid ah goobaha lagu daweynayo biyaha ay soo qaadayaan booyaduhu waxa uu sheegay inay ka dhalan karaan cudurro khatar ah biyaha aan la daweyn ee loo gudbinayo shacabka caasimadda ku nool. waxaan joognaa controlka bari ee magaalada Garowe. halkan waxaa jooga oo ila jooga garbahayga taagan mutadawiciin ka socota hay'adda Bisha Cas ee Soomaaliyeed iyo agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose Cabdicasiis. tiimkan waxay shaqaynayeen ilaa shalay. waxay ka shaqaynayaan halkan shaqada la wadana waa in la daaweeyo chlorine lagu daro biyaha xareedda ah ee magaalada galaya. waad ogtiin roobka ayaa bilowday. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaa maanta oo kaliya hadda waa kowdii iyo barkii duhurnimo. ilaa saaki waxa ay chlorine ku shubeen oo ay daaweeyeen 195 booyadood oo biyaha xareedda wada oo magaalada Garowe la geynayo. olole ballaaran oo aanu maaragtay iska kaashanayno dowladda hoose ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed iyo shirkadda Golis oo iyaduna arrintan taageero naga siin doonta oo naga taageeraysa. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan sababtuna waxa weeye maadaama la tuhunsan yahay ama la og yahay in xoolo fara badan ay abaartii ku baktiyeen. waxaanu filaynaa in laga yaabo in biyaha waxyeello ay gaarto xareedda dadka loo dhaaminayo maadaba si marka caafimaadka dadka loo ilaaliyo oo biyahaas haddii ay contamination gaaro ama ay wasakhoobaan loo daaweeyo ayaanu hawshan maaragtay u wadnaa. Cabdicasiis Maxamed Cali agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada Garowe oo isagana kula kulanay goobta ay shaqada daweynta biyuhu ay ka socotay waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay fayadhowrka magaalada caasimadda ee Garowe. runtiina waxaan ilaalinaa waxa weeye waa fayadhowrka magaalada. waxaan ilaalinaa waxa weeye waa inuusan dilaacin wax cudur ah. runtiina waxaan u taaganahay har iyo habeen una taagnaan doonaa insha Allah inaan ilaalino caafimaadka magaalada Garowe iyo hareeraheedaba. runtiina bulshada caasimadda ku nool waxaan u sheegaynaa iyo bulshada kaleba daawadanasaba in biyaha la soo dhaaminayo ay iska hubiyaan haddaysan hubinna ay ku shubaan chlorine 30 daqiiqo kadibna ay isticmaalaan. mid ka mid ah dhalinyarada shaqada wax ka waday oo ka socday ururka dhaqaatiirta Bisha Cas ayaa isaguna dareenkiisa ka hadlay. 2 saac oo subaxnimo ilaa iyo maanta oo 7 tahay waxaanu ka shaqaynaynay daweynta ama chlorine ku daridda biyahan laga soo qaadayo duleedka magaalada kuwaasoo laga filayo inay ku jiraan wax bacteria ama sababi karta caafimaad darro. waana laga hortagaya waa health prevention weeye oo wax aad u mahadsan tahay dowladda hoose iyo annaga Bisha Cas. marka annaga mutadawiciinteedaan waxa ahay 3 group laba group halkan oo biyuhu aad ka ugu tirada yihiin ayaa lagu soo qoray. groupna controlka galbeed ayaa lagu soo qoray wala uu ka had shaqadii soo dhameeyay badankood halkan loo soo wareegeen. ugu yaraan 295 gaadiid oo booyadaha biyo wada ayaa la daweeyay suu sheegay gudoomiyuhu. haddana waa wadnaa shaqada ilaa iyo caawiyo asbuucaana waa ku jiri doonaa. Cabdi Fataax Cabdullaahi Kalsan TV Garowe.